kadib muddo bil ah uu socday koobka adduunka isla markaasina ay fasax galeen horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa waxaa dib u bilaabmay horyaaladaasi gaar ahaan horyaalka xiisaha leh ee Premier League ayaa la ciyaaray ciyaaro xiiso leh badina waxaa guulo gaadhay kooxaha waaweyn ee horyaalka kooxda Tottenham ayaa 2 gool la gashay kooxda Brentford barbaraha kulankan waxaa dirqi ku keentay kooxda Tottenham waliba daqiiqadihii ugu dambeeyay ee kulanka Fulham waxay 3-0 ugu awood sheegatay kooxda Crystal Palace ciyaar kale oo xiiso badanna waxay dhex martay Leicester City oo martigelisay kooxda Newcastle United inkasta oo kulankan la saadaalinayay inay kooxda Leicester City badin karto haddana waxaa looga badiyay 3 gool iyo waxba Newcastle United waxa ay soo gashay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Premier League waxayna sanadkan wacdaro ka dhigaysaa isla horyaalka kooxda Arsenal oo hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa garoonka Emirates ku soo dhaweysay kooxda West Ham waxaana qaybta hore ciyaarta lagu kala nastay 1 gool iyo eber oo ay kooxda West Ham ku hogaaminaysay Arsenal oo maanka ku haysa inay yihiin hogaamiyaasha horyaalka Premier League ayaa qaybtii labaad ee ciyaarta waxa ay keentay 3 gool goolka u dambeeyana waxa dhaliyay Nketiah oo kooxda West Ham oo rajo ka lahayd inay barajada keenaan ciyaarta uga dhigay 3-1 gool Arsenalna waxay ku sii noqon doontaa inay sii hogaamiso horyaalka Premier League tan iyo inta ciyaaraha soo socda kooxda Liverpool ayaa 3-1 kooxda Aston Villa ugu awood sheegatay Chelsea waxa ay 2-0 kaga badisay Bournemouth halka Manchester United oo bariyahan ay ka jajabneed ay 3-0 u dhibtay kooxda Nottingham Forest